kulan casho sharafa oo lagu sagootinay ciyaaryahanka Soomaaliyeed Cabdisalaan Cabdiqaadir Ibraahin Cadaay oo ku sii jeeda dalkaasi Ingiriiska kadib markii uu dhamaaday horyaalka dalka Norway oo ay kooxdii uu ciyaaray ka gashay kaalinta labaad ayaa lagu qabtay magaalada Oslo ee dalka Norway. waxaan idin leenahay soo dhawaada maantana hadii la yiraahdo ninka odaga ah Cabdisalaan Cadaay ayaa waxaan u dhignay xaflad casho sharaf. kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada odayaasha ciyaartoyda macallimiinta ciyaaraha kala duwan iyo guud ahaan bahweynta Soomaaliyeed ee isboortiga ee ku dhaqan dalka Norway ayay ka dhex muuqdeen odayaal taariikh weyn ku leh ciyaaraha Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen macallin Shiina Gohaad oo isagu ahaa ciyaartoy ka tirsanaan jiray xulka qaranka ee kubadda Koreyga Rabbi oo sidoo kale ahaa isna ciyaartoy weyn macallin Cabdi Jaamac iyo waliba ciyaartoy Saacid oo ka mid ahaa xulkii qaranka ee kubadda tenniska. kulankan casho sharafta oo ay hadallo qiimo badan ka jeediyeen dadkii ka soo qayb galay ayuu macallin Shiina Gohaad tilmaamay baahida loo qabo in la mideeyo isboortiga Soomaaliyeed wuxuuna yiri taakuleeyo gudaha iyo dibadda isboortiga Soomaaliyeed ninkan dhalinyarada ah oo mustaqbalka leh Soomaaliya oo dhan ay sugayso waxaan rajaynaynaa inuu noqdo ciyaartoy fiican oo moorad iyo sharaf leh haddana uu gudbaayo kaalintii fiicneed waan ku faraxsanahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi. sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay Rabbi oo sheegay in ciyaaraha laga dhex saaro qabyaaladda loona daayo dadka ehelka u ah. anigu marna odayaan ahay mar dhalinyaraan ahay labada waa ku jira labada qaybood qayb iga baxsan karta mar isboortigu waa fayska lagu arki karo shacbi ama dawlad lagu arki karo markii ay meel walbaba ka qayb gasho isboortiga qabiilka laga dayo walaalayaal please iyadoo ay dhammaanba dadkii ka soo qayb galay kulankan casho sharafta ah muujiyeen sida ay lagama maarmaanka u tahay in la horumariyo isboortiga Soomaaliyeed ayuu kabtanka xulka qaranka ee kubadda cagta Soomaaliyeed ciise oo isagu u ciyaara kooxda askar ee dalka Norway tilmaamay inay muhiim tahay in si wanaagsan looga faa'iideysto hibada ay leeyihiin ciyaartoyda Soomaaliyeed ka ciyaara dibadda wuxuuna ku nuxnuxsaday in jaaliyadda Norway ay si gaar ah isugu hawsho sidii ciyaartoyda Soomaaliyeed ka ciyaara dalkan loogu dari lahaa xulka qaranka Soomaaliyeed. ninka la yiraahdo maxaa ku raadayay Cabdi Jaamac wuxuu sheegay in ay jiraan ciyaartoy fara badan oo ka dheelo Norway aad u wanaagsan markii dadka Premiership ka ciyaaro oo wadanka ka ciyaaro oo maxaa ku raadayay kaalinta kood ka ciyaaro dadka hal diro si ay u caawiyaan maxaa ku raadayay kaliya ma ahan dadkii halkaas ka hadlay ciyaartoyda cuslaatay odayaasha isboortiga iyo macallimiinta waxa isna hadallo wacyigelin halkaas ka jeediyay xildhibaan hore Cali Ganay oo si aad ugu booriyay waalidiintu inay ilmahooda ku dhiirigeliyaan isboortiga. waxaan leeyahay dhalinyarada reer Oslo ama reer Norway dhamaantiin waa waajib idin saaran in kaalinta isboortiga ka soo dhalaashaan idinkoo waliba u gudbinaya waalidiinta waxtarka ama horumarka isboortiga ku jiro sababtoo ah waxa laga yaabaa waalidka iyo isboortiska inay sidoo kale waxa iyaguna halkaas hadallo qiimo leh ka jeediyay Cali Macallin Mahad Turbashaash iyo waliba Guray iyo Kalkaal oo iyaguna kamid ah macallimiinta iyo odayaasha gacanta weyn ka geystay horumarinta isboortiga Soomaaliyeed iyo dhiirigelinta dhalinyarada iyadoo mid walba oo iyaga kamid ah uu tilmaamay wanaagga u leeyahay isboortiga waxayna sidoo kale ku nuxnuxsadeen inuu Cabdisalaan Cabdiqaadir Ibraahin Cadaay uu yahay dhalinyarada tilmaan ay ku hirtaan. ugu dambeyntii kulankan ayay qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan dalka Norway u sheegeen TV-ga Universal sida ay ugu faraxsan yihiin inay ka soo qayb galaan casho sharaftan lagu sagootinayo Cabdisalaan Cabdiqaadir Ibraahin Cadaay oo ah ciyaartoy Soomaaliyeed oo ka dhex muuqda horyaalada qaaradda Yurub. علمي ودقن مقالة أوسلو نروي وحن أدق فرحسنين نعاو كسو قيب قل حفل العشر لو سميني إن عياريها كسومالية كعيارة نادي هير كوادي مانشستر سيتي كان عياري سنة كان كوحدة ستروم جود سيت مقالة درامو كدي سن هالكاسو أي قلين كالين طلبات تيب الليغا موريال كودك النروي سيدي لو دردرقليل gunti iyo gabagabadii kulankan casho sharafta ayaa la isla meel dhigay sidii loo dardargelin lahaa isboortiga Soomaaliyeed. Umar Cabdi Afey, Universal TV, Oslo, Norway.